السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نابليو بونابرت ayaa laga qoray kelmado dhiirigelin leh waxaana kamid ah oraahidiisii hadii aad haysato irbad waad kari kartaa in aad qodo ceel markasta oo leedahay hami sare isla markaana ay ka go'an tahay in aad xaqiijiso yoolkaada caqabadaha ka hor imaan doono waad ku dusi doontaa inta aad nooshahay oo neefsanayso waa ku suuragalaysaa inaad ku guuleysato riyadaada waa hadii aad joogtayso halgankaada xanuunka iyo mashaakilaadka ma ahan caqabado ka hor istaagi kara in aad guuleysato laakiin waa dhiirigeliyaal kugu riixaya in aad samayso wax qariib ah ama mustaxiil ah tusaale fiisiksyahankii weynaa ee reer Britain Steve Hawking wuxuu ahaa saynisyahan ka guuleystay xanuunka isla markaana xaqiijiyay guulo mug leh dunidana kaga tagay cilmi bulshada ku nool caalamka anfacay Steve waxa ku dhacay cudur u diiday in uu dhaqaajiyo xubnaha jirkiisa marka laga reebo xubno yar oo isha ay ka mid tahay asigoo xaaladani ku sugan ayuu dunida reer galbeedka ka dhalajiyay cilmi wax ku ool ah maadaama uu qoray buugaag badan oo ummadaha anfacay Steve xanuunka haleelay ee u diiday xubnaha jirkiisa in si caadi ah u shaqeeyaan waa ka hor istaagi waayay inuu guulo gaaro ee wuxuu u noqday xanuun dhiirigeliya kuna riixay inuu hore u socdo oo marnaba isma dhiibin ilaa markii dambe uu gaaray meel sare haddaba qisadani kuma wajahan Steve ee waxaan ka sheekayn doonaa shakhsi oo ku dhacay xanuunka Steve curyaamiyay ka oo asigana awooday inuu sameeyo waxyaabo ay ka caajiseen shakhsiyaadka fiyow ee caafimaad qaba haddaba waa kuma Suldaan Cadal qisada guushiisa ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah ee daawasho wacan Suldaan Cadal waa mid ka mid ah ragga ganacsatada ah ee ugu caansan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya waa shakhsi kaalin muuqata kaga jira horumarinta dalkiisa iyo shaqo abuuridda dhalinta baagamuudada niyadda ka dishay waana qof ay ku daydaan dhalinta caalamka ku nool wuxuu awooday Suldaan Cadal inuu adkaysto xanuunka curyaamiyay ee howlgabka ka dhigay xubnaha jirkiisa marka laga reebo maqalka iyo aragga oo Suldaan Cadal wuxuu ku shaqaystaa labadaas xubnood waana u suuro gash inuu maareeyo shirkado badan oo ay ka shaqeeyaan shaqaale gaaraya 10,000 oo shaqaale wuxuuna shaqaalahaasi ku maamulaa xubinta kaliya ee jirkiisa ka dhaqdhaqaaqaysa ee isha Suldaanka ayaa ka qalin jabiyay macad ku yaala gudaha dalkiisa gaar ahaan magaalada Riyadh kadibna wuxuu u safray dalka Mareykanka asigoo ku biiray jaamacadda Portland ee ku taal wilaayada Oregon wuxuuna ka bartay jaamacadani cilmiga handasada asigoona ka qaatay shahaadada baajka ee dhanka korontada sidoo kale wuxuu gacanta ku dhigay shahaado muhiim ah taa oo ah maareynta waqtiga dhanka kale wuxuu xarunta Franklin Covey ka helay shahaado saddexaad taas oo ka qaatay cilmiga mabaadi'da u dhaxaadka u ah maareynta ganacsada Suldaan Cadal wuxuu tusaale nool u yahay shakhsiyaadka xanuunsan ama kuwa caajiska howlgabka ka dhigay waxaana sanadkii 1997 ku dhacay cudur ka uu ku waayay dhammaan dhaqdhaqaaqyada xubnaha jirkiisa marka laga reebo indhaha iyo bishamaha wuxuuna ku neefsadaa tumbo oo makari kar inuu si caadi u neefsado sidoo kale wuxuu ku qootaa tumbo oo afku wax kuma cuni karo asigoo waxa soo dhibaato ku nool ayuu haddana gaari guulo mug leh dhan kalena uu ku raali noqday qadarka Alle wuxuuna shaqadiisa bilaabay ganacsada Cadal inta uusan xanuunsanin asigoo aasaasantii 1994 shirkadiisa Simsar Express taas oo bixisa adeeg bulshada Sacuudiga baahi weyn u qabaan oo shirkadu waxay gudaha Sacuudiga ka howlgelisaa in ka badan 1,000 gaadiid oo badeecooyin u kala daabila dhammaan gobolada dalka Sacuudiga waxay shirkadda noqotay mid aad u kortay isla markaana si xawli ah ugu faaftay gudaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo guud ahaan dunida Suldaan Cadal ayaa inta uu joogo dalka Mareykanka ku qancay oo la dhacay maqaayadaha silsiladaha ah ee ka ganacsada cuntada fudud iyo qaxwada ee loo magacaabo Dunkin Donuts taas oo keentay kolkii dambe inuu qandaraas la galo milkiilaha maqaayadda oo sanadkii 1996 Suldaan Cadal farac Dunkin ka furo magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga sidoo kale Suldaan Cadal intuu xanuunsanaa wuxuu aasaasantii 2009 shirkadda Maakal ee caalamiga ah isla markaana ka shaqeysa soo saaridda cuntada nafaqaysan hadda Suldaan Cadal asigoo ku sugan xaaladani ayuu maamulaa 3 shirkadood oo caalami ah waxaana uu si dheer oo xubin muuqata ka yahay golaha shirkadaha Sacuudiga ee wax dhoofiya sidoo kale wuxuu xubin firfircoon ka yahay golayaasha maamula shirkadaha Ramla iyo Mansuur dhanka Suldaan Cadal kuma ekaan ganacsigiisa wuxuu awooday
asigoo ka faa'iideysanaya arigiisa inuu qoro buug oo kaga sheekaynayo taariikh nololeedka qoyskiisa. sidoo kale wuxuu hor u alifay buugaag kale, waxaana ka mid ah buugaagtaasi mid oo ugu magac daray insaanka iyo dhibaatooyinka. Suldaan Cadal waa shakhsi guulaystay, noloshana kala hortagay samir iyo adkaysi, isuma dhiibin cudurka oo sariirta ma laazimin, ee wuxuu karay inuu xaqiijiyo yoolkiisa. wuxuuna aaminsan yahay in aan nolosha laga quusan xaalad kasta oo ku sugan tahay, habboon tahayna mar kasta inaad Allah tala saarato, dadaalkan aad wado marnaba aad caajisin. gabagabadii wuxuu noo cadeeyay Suldaan Cadal ya'siga iyo quuska inuu yahay badeecada mufliska ama ruuxa shiiday oo khasaaray, rajaduna tahay ciwaanka hamiga.